waxay u muuqanaysaa gobolka bariga dhexe caawa sheekooyinka ay ka qorayaan warbaahinta in lagu kala baxay oo lagu kala adkaaday. kala adkaashiyaha kaliya ma aha in cidna cid kale ay qabato ay maqooniso, laakiin sida wax u dhacayaan iyo sida xogaha ay hadda u soo baxayaan ayaaba la yaab leh. aan dib u eego waxa caawa ka taagan gobolkaasi. tusaale kale dowladda Mareykanka markab kala bedelasho ay ku jirtaa. markabkii Abraham Lincoln waxa lagu soo waramayaa ee diyaaradaha xambaaraya dagaalkana qaybta ka ahaa in hadda uu wajahayo marxalad aad u adag. sidaas darteed dowladda Mareykanka waa celinaysaa markabkaasi iyo shaqaalaha iyo askarta saaranba waxaanay ku soo bedelaysaa markabka USS George W. Bush oo isna kamid ah maraakiibta diyaaradaha xambaara oo gobolka bariga dhexe lagu soo celinayo. maalmihii ugu dambeysay qayladhaan ayaa ka soo baxaysay, laakiin wasiirka dagaalka waxa uu leeyahay war sida aad wax u wadaan ama aad u tilmaamaysaan uma jiraan. haddaba markabkan macallad baa haysata ma askartii ayaa stress iyo dhibaatooyin ka qaaday dagaaladii ugu dambeeyay mase markabkan xitaa waxa leeyahay waxyaabo kale ayaa jira. waan kula wadaagi doonaa ila soco. sidoo kale waxaan eegi doonaa dowladda Iran waxa la leeyahay dagaalka waxay ku ahayd arrin mucjiso ah. wax badan oo la qarinayay ayaa maalinba qayb la soo saaraya. hadda waxa la leeyahay 25% diyaaradihii dagaalka ee MQ-9 Raptor loo yaqaanay oo dowladda Mareykanku ay ku howlgalaysay aan duuliyaha lahayn. 25% dowladda Iran waa burburisay waana laqday. 57 ayaa Mareykanka u yaala oo aad ogtahay dalal waaweyn inay hayaan oo ay ka mid yihiin Shiinaha iyo Ruushka. haddaba diyaaradan qiimaha ay ku fadhisatiiba $30 milyan ayay ka badan tahay. 30 milyan oo boqolkiiba 25 diyaaradaha guud ee cadadka Mareykanka lagu dhuftay. lacag fara badan baa halkaasi ku baabaaday. Trumpna xaalkiisa aad buu runtii u yaaban yahay. warbaahintii dowladda Iran dagaalka ayay si rasmi ah hadda u galeen. waliba ninkii Trump ahaa saacadihii la soo dhaafay waxa ay ka qoreen haddii aad aragto adaa yaabaya. maadaysi warbaahineed ayaa lagu tilmaamay waxa socda. Trump ayay isaga maadaysanaya waxay leeyihiin alla ilaahay wadanka Iran ciidamo waxay haystaan Mareykanka ka yaabiyay. hadalkaasi Trump haduu maqlo maxaa laga filan karaa? iyana waan eegi doonaa. Saudi Arabia loolan dagaal iyo qorshe isbahaysi difaac ayuu galay markii Xuutiyiinta maanta ay jugta ka sureen magaalada Jizan halkaas oo ay ku yaalaan ceelasha shidaalka. maxaa laga qorayaa weerarkii maanta dhacay? Xuutigana maxay tilmaamayaan? dowladda Masar oo iyana la filayo dagaalka gobolka bariga dhexe in uu daad soo socdo ku yahay. hadda waxay leedahay warka ka soo baxaya Sacuudiga iyo Pakistan iyo Turkiga wax la dheelsan kara maaha. waxaan dib u qiimeynaynaa bal inaan isbahaysigaasi ku biiri karno. maalintay Masar isbahaysigaasi ku biirto Israa'iil waa mural dilaacaysa. sababtu maxay tahay? intaba ku sheegaya. haddaba qiyaarta in la socotay oo arkaysa gobolka bariga dhexe meesha uu socdo taxliilka iyo faaqidaada caawa markii aan dhamayna kadib magacaadii meesha aad joogto adigoo ku bilaabaya bal qaybta hoose waxaad ku qori doontaa aragtidaada ku aadan Trump haddii hubkii gantaalidii Tomahawk iyo nidaamyadii difaaca ee Patriotka iyo boqolkiiba 25 diyaaradihii duuliyaha lahayn iyo dagaalkii tiknoolajiyadda iyo istiraatiijiyadda haddii looga adkaaday la leeyahay wadankaasi xaalkiisa ma qumana maraakiibtiisina uu leeyahay waan kala bedelayaa oo xaalka markabka Abraham Lincoln laga soo dayrinayo iyo shaqaalaha saaranba. dagaalkan ma ku faa'iiday mase kuma faa'iidin? siyaasadda Khamenei uu dheelayana maxaa lagu tilmaami karaa? su-aashaasi ayaynu kaga doodi doonaa qaybta commentiga iyo aragtideena. haddii aad nala socoto muuqaalkan laagsaar sheer garay saaxiibadana la wadaag bal taxliilkii qodobadaasina u diyaar garooba ee la soco soo dhow. ma ogtahay in dhakhtar Shaafici Aadan Dirir loo aqoonsaday dhakhtarka ugu wanaagsan qaliimada dalkeena Soomaaliya ahna dhakhtarkii ugu horeeyay ee wax ku qala qalabka casriga ah ee laparoscopiga ama laserka. maalin waliba wuxuu heegan kugu yahay isbitaalka Shaafici ee magaalada Muqdisho ee hore u gaar. raadeerada ay isticmaalayaan dowladda Iran iyo waliba sida qalabkii Mareykanka ay u baabiiyeen gobolka bariga dhexe waxa la leeyahay qasaarahan Mareykanka dagaalkan ka gaaray waxa uu u dhigmaa baa leeyahay dagaalkii Vietnam uu la galay. حتى كي عراق ولا قلي كي أفغانستان وكو قلي
khasaaraha Iran uu kala kulmay kalama kulmin dadka qaar oo qubarada waxay xitaa u arkaan Mareykanka inuu markan daraasaynayo dawladda Iran ma kaligeed baa dagaalka ku jirtay masadaha gadaashiisa lagu fadhiyo oo aqoon Iran ka weyn ayaa halkan taala arinta la yaab kale caawa soo baxayso oo waliba wargeyska The Washington Post oo qoraya waxa kamid ah 25% diyaaradaha dagaalka ee aan duuliyaha lahayn ee Mareykanka oo tiiba $30 milyan ay ka badan tahay ay dawladda Iran tii loo diray soo noqon diyaaradan waxa loo yaqaanaa MQ-9 Raptor la yaabka waxay xitaa ahayd in markii dagaalka lagu qaaday kooxda Xuutiga oo Mareykanku uu hogaaminayay diyaaradan jugta laga suray oo ay soo laabawayso taas oo hadda la isweydiinaya bal injineernimadeeda ma wax ka qaldan yihiin maxaa diyaaradda waxaan oo qarash loo galiyay diyaaradda marka 30 milyan ku fadhisa iyadoo waa la iska soo daadanaya sida abiteedii oo kale ayaa la iska soo qabanaya waxba lagu tuuraya waa iska soo dhacaysa laakiin diyaaradda $500 ku fadhisa motorada Jarmalka ah la saaray ku shaqeynaysa wirelesska ama waxa la yiraahdo cableska badda hoosteeda yaala dawladda Iran ay isticmaalayso shahiid la yiraahdo waxa aragta ku sameeya qaliishka gantaalaha ku tuuraya meel walba waxa leeyahay $500 ay joogtaa laakiin qasaarahaasi ma jirto fiber optic isticmaalaysa internetka laakiin diyaaradii wadanka Mareykanka ha sameeyay maxaa helay halkan marka dawladda Shiinaha iyo Ruushku indhahay ku hayaan waxa leeyahay waniyahow hadalka amuu yahay dawladda Iran ay sheeko la yaab la keentay oo odaya laga hayaa minay bactaana oo bujayna minay birtaana oo raacayna dawlad Soomaaliya loo soo dhisay hadda waxa leeyahay ninkii Mareykanka waxa uu meesha uu ku hayay baal xooftadii Trump warmeesha amaysan waxba oolinba balan eegno wargeyska The Washington Post waxa uu hadda qorayo waxa uu leeyahay ciidanka Mareykanka oo dagaalkii Iran ku waayay 45 diyaaradood oo aan duuliye lahayn wargeyska Washington Post waxa uu sidoo kale sheegay isagoo soo xiganaya mas'uuliyiin Mareykan oo sheegaya in ciidamada Amerikaanku ay lumiyeen ugu yaraan 45 diyaaradood oo aan duuliye lahayn gaar ahaan nooca qaaliga ah ee loo yaqaan MQ-9 Raptor oo ah intii uu socday dagaalka wadanka Iran oo kaliya mas'uuliyiintan ayaa sheegay in tiradaasi ay u dhigantay baaliri ku dhawaad 25% diyaaradaha guud ee MQ-9 Raptor oo dawladda Mareykanku ay gacanta ku hayaan Mareykanka ayaa muujinaya heerka halista iyo waliba dagaalka culus ee ka dhashay iskoorimaadka u dhaxaya Mareykanka iyo Iran iyo diyaaradahan la beegsanayo kormeer xoogan iyo xog aroorin loo isticmaalayay in ay hadda dhibaatooyin weyn ay la kulmayso dawladdaasi oo ay ka dhigan tahay dawladda Mareykanka in istiraatiijiyad ahaan dagaalkan fashil weyn ay ku wajahday warbaahinta Iran ayaa caawayna ninkii Trump ha isaga jeesjeesaya waxay leeyihiin ninkan Trump la yiraahdo anagoo noo baal xoofteenaya mooyaane ciidamada ilaalada kacaanku shakhsiyadiisii dhabta ahayd ay soo saareen ninku jilcana oo maama sidan dhanbu muuso ahaa doodaasi caawa keento warbaahinta Iran waxa la leeyahay arinta dagaalka ra'yigu waa sheeko aad u culus marka laga hadlayo gobolka bariga dhexe anaga wargeyska ra'yilyoom arintaasi waxa uu ka qorayo warbaahinta rasmiga ah ee Iran ayaa ku jeesjeesta baaliyay madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump kadib markii ay soo baxeen faahfaahin cusub oo ku saabsan in si qarsoodi ah loogu bedelay diyaaradihii oo la socday xilliga uu booqashada ku joogay wadanka Turkiga warbaahinta Iran waxay sheegteen dhacdadan ay muujinayso sida ay ku dooday heerka walaaca Trump ee awoodda ciidamada Jamhuuriyadda Islaamiga ah Reuters ayaa soo xigtay wariye ka tirsan telefishinka dawladda Iran oo yiri Trump mar kale oo noqday baaliyay mowduuca ugu weyn ee warbaahinta Mareykanka isagoo sheegay in dhacdada diyaaraddu ay ka dhalatay baaliyay cabsi laga qabo awoodda militariga ee wadankaasi Iran wariyaha waxa uu sidoo kale sheegay in Trump uu bishii hore ka soo laabtay baaliyay Turkiga si qarsoodi ahna u bedelay diyaaradiisii tani waxay bahdil ku tahay wadanka weyn ee qaranka Mareykanka dhinaca kale saxafiyiinta ayaa sheegay in isbedelka diyaaradda uu dhacay kadib markii adeega sirta ah ama shaqaalaha Secret Service-ka loo yaqaan uu bixiyay tilmaamaha ku saabsan in Trump uu sidaas yeelo maadaama xaalku uu u eg yahay baa la yiri in aan la dheelsan karin doodaha soo baxaya ee banaanka imaanaya
waayahay isla maraykanka haddii aan eego warar culus ayaa soo baxaya oo waxaa la leeyahay dowladda maraykanka ayaa bedelaysa qaar ka mid a maraakiibteeda gobolka bariga dhexe jooga ee diyaaradaha xambaara waxaa la leeyahay arinta ugu weynse waxay tahay markabka Abraham Lincoln oo saraakiisha iyo waliba askarta saaran ay aad u daaleen biyaha ay ka yaraadeen xaalka uu qasan yahay qaar ka mid ah askartu ay wareereen waayadii ugu dambeysay dooda markabku ay aad u taagneyd oo loo arkaba in tani ay niyad jab ku noqonayso waaxda dagaalka ee Pentagonku haddii aanay si degdeg ah markabkaasi u celin marka Trump uma muuqanayo nin si sax ah dagaalka uga baxay sidaas darteed markab kale la yiraahdo George Washington ayuu doonayaa in uu ku bedelo markabkaasi oo loo arkaaba la yiri in uu yahay kuwa ugu dhaqdhaqaaqa badan ee hadda gobolka bariga dhexe jooga danaha iyo waliba interestiga Mareykanka lagu ilaalinayo مسؤول مريكان ayaa telefishinka Al Jazeera u sheegay in markabka diyaaradaha xambaara ee George Washington loo dirayo gobolka bariga dhexe iyadoo talaabadan ay qayb ka tahay wareejin ciidan oo qorsheysan baa liri مسؤولkan ayaa sheegay in George Washington uu bedeli doono labada markab ee diyaaradaha xambaara ee Mareykanka ee hadda ku sugan halkaasi arintan ayaa timi maalin kadib markii ciidamada badda Mareykanku ay ku dhawaaqeen kooxda dagaal uu hogaaminayo markabka George Washington ay ka baxeen baa liri gudaha wadankaasi Mareykanka iyagoo aan la shaacin halka ay ku jahaysan yihiin dhinaca kale waxa soo baxaya warar kala duwan oo caawa la leeyahay markabka Abraham Lincoln ayaa xaalad adag ku jira sidaas darteed wasiirka dagaalka ee Mareykanka Pete Hegseth ayaa ku dhawaaqay in isbedelo waaweyn ay jiraan oo aanay ahayn markabkaasi inay dhibaatooyin weyn soo gaareen oo sida dadka iyo dawladuhu ay u fasirayaan aanay sax ahayn wasiirka dagaalka ee Mareykanka ayaa beeniyay wararka sheegaya in xaaladda nololeed iyo waliba niyadda ciidamada markabka diyaaradaha xambaara ee USS Abraham Lincoln ay yihiin kuwa aad u liita warkaasi waa waxba kama jiraan buu yiri Hegseth ayaa sheegay in warbixinta lagu qoray xaaladda markabka ay bixiyeen sawir gabi ahaan qaldan isagoo difaacay baa la yiri ciidamada iyo shaqaalaha markabkaasi saaran laba warbaahin oo ku takhasusay arrimaha ciidamada badda ee Navy Times iyo Star and Stripes ayaa horay u sheegay in markabka ay saaran yihiin ku dhawaad 5,000 oo qof oo badda ku jira baa la yiri tan iyo November 2025 isla markaana ay soo baxeen warar ku saabsan isku dayo isdilis iyo waliba hoos u dhac ku yimi niyadda ciidamada Mareykanka oo qaar kamid ah ciidamada Mareykanka ayaa rabay oo markabkaasi saarnaa in ay halkan u arkayaan dhibaatooyin adag inay ku wajahayaan oo noloshooda ay ku waayaan markabka Abraham Lincoln ayaa tan iyo bishii Janaayo ku sugnaa bariga dhexe isagoo taageeraya howlgallada militariga Mareykanka ee ka dhanka ah wadanka Iran Hegseth ayaa suxufiyiinta kula hadlay xilli uu booqasho ku joogay Panama waxana uu sheegay in wasaaradda dagaalku ay hubinayso in markab kasta shaqaalihiisa iyo waliba kabtanku ay helaan dhammaan taageerada iyo agabka loo baahan yahay waxa inta ku daray in qaar kamid ah howlgallada ciidamada badda ay ka dheeraan karaan kuwa kale isagoo amaanay badbaaxinta Mareykanka ee muddada dheer howlgalkan ku jiray waxana uu leeyahay ciidamadeenu waa kuwa ugu adag uguna geesisan ee hadda dagaalkaasi ku jira hogaaminayana waaxda dagaalka ee wadanka Mareykanku waxay sidoo kale ku dhawaaqeen in ay sii wadi doonaan go'doominta lagu hayo dekedaha wadanka Iran wasiirka dagaalku waxa uu sidoo kale sheegay in Mareykanka uu sii wadi doono go'doominta Iran inta ay xaaladda u baahan tahay waxaynu sii wadi doonaa go'doominta Iran inta ay arintani u baahan tahay in si dhow loola socdo waxaan awood u leenahay inaan sii wadno go'doominta Iran inta aynu kari karayno aan sii wadna ayuu hadalkiisa ku yiri waayahay qiyaarta ay nala socotay haddii aan sii eego wararka waaweyn ee caawa taagan maanta dowladda Saudi Arabia waxba looma reeban oo mar kale ayaa jugta laga suray calashii shidaalka ee Jiisaan kooxda xuutiga ee wadanka Yemen ee gacansaarka la dowladda Iran waxa ay leeyihiin hadiiba anagaan xalkan ku jirno Sacuudigana ishii yaraydo aynu ku noolayno garoomada ay dekada ahayd uu duqeynayo
sababo oo baawur luxury ay madaxdiisa u wada karaan dadkiisana u raaxaysan karaan ma jiraan ceelasha shidaalka waa in nagta laga gadiyaa. kooxda xuutiga ee wadanka Yemen ee taageerada ka helaysa Iran ayaa Khamiistii sheegay in 2 diyaaradood oo aan duuliye lahayn lagu weeraray warshadaha sifeeye shidaalka ee Aramco ee ku yaala gobolka Jizan ee koonfur galbeed Saudi Arabia. wakaalada wararka ee Saba ee Xuutiyiinta ayaa soo xigatay ila military oo sheegaya in weerarka lagu fuliyay 2 diyaaradood oo aan duuliye lahayn, isla markaana ay sheegeen in bartilmaameedkii si sax ah uu haleelay dowladda Sacuudigana ay xanuunkeeda caawa dareemayso. Xuutiyiintu waxay ku andacoonayaan in weerarka uu ahaa jawaab ay bixiyaan waxa ay ku tilmaameen xadgudub Sacuudiga uu ku hayo hawada iyo madaxbanaanida qaranka ee wadankaasi. waa weerarkii labaad muddo ka yar 7 oo kooxda Xuutigu ay ku garaacayaan ceelasha Jizan. 7 ka hor ugu yaraan 11 qof ayaa ku dhaawacmay gobolka xuduudda ku yaala ee Najran kadib markii Xuutigu ay qaadeen weerar xoog leh iyadoo Riyaad ay u aragto tani inay tahay caqabada ugu weyn ee hadda wadankooda haysata. Yemen oo noqotay furin iyo dagaal cusub oo ka bilaabanaya xilli gobolka bariga dhexe xaalkiisa iyo xiisada ka taagan aan la saadaalin karin jihada iyo waliba qaabka uu noqon doono sida wararka caawa la helaya ay tilmaamayaan. iyadoo Sacuudiga aan waxba loo reeban ceelashiisa shidaalka iyo waliba noloshiisa dhuunta loo fadhiyo oo kooxda Xuutiga ay qaadayaan tallaabo kasta oo cabsi gelin iyo weerar leh, haddana wasaaradda difaaca ee Sacuudiga maanta waxay qaaday tallaabo ay leedahay maxaynu ka dhowranaynaa wiilashan macaawista wata ee mirkhaamaya waa Xuutiga wadanka Yemen. waxaynu doonaynaa baa la yiri inaan tallaabo qaadno. wasaaradda difaaca ee Saudi Arabia ayaa ku dhawaaqday in magaalada Jeddah uu ku qabsoomay shirkii saddexaad ee qorsheynta isbahaysiga difaaca badda ee dalal badan kaas oo ay ka qayb galeen wakiilo ka socday 39 dal oo caalami ah. wasaaraddu waxay sheegtay in 13 dal ay dhameystireen habraacyada qaran si rasmi ah ay ugu dhawaaqeen ku beerista difaacaasi isbahaysiga ee ka dhanka kooxda Xuutiga. isbahaysigan ayaa diiradda saaraya xoojinta amniga wadajirka ee badda, ilaalinta xorriyadda maraakiibta iyo ganacsiga, iyo waliba in laga hortago weerarada kooxda Xuutigu ay qaadayaan oo hadda u muuqanaya mid aan la aqbali karin marka la fiiriyo jihada iyo qaabka uu ku soconayo. waayahay qiyaarta ay nala socotay haddii aan sii eego wararka kale ee caawa ka soo baxaya gobolka bariga dhexe aad bay runtii u culus yihiin. nimankii Masar ahaa waxaa la doonayaa fuusta weyn in loo dildileeyo, iyana waxay leeyihiin caalamka aqoon iyo maskax ayuu magan u yahay. sidaas darteed waxaynu u diyaarsanahay intii ay goorigoor tahay inaan wax badan iska eegno. warqadaha la inagu qaldimaayo madaafiicda inoo soo dhaweeyana naargagax geli maayaan. waxaan ahay dowladda Masar. arrinta waxay la xiriirtaa markii ugu horeysay dowladda Masar inay si dhammaystiran oo furan ay uga hadashay heshiiskii Maka inay ku beerayso iyo in kale. wasiirka amuraha dibadda ee Masar Dr. Badri Abdilcaadi ayaa ka hadlay magaalada Qaahira. wasiirka qaarajiga ah ee dowladda Carbeed ee Masar Badri Abdilcaadi ayaa sheegay in heshiiska difaaca wadajirka ah ee Maka ay kala socdeen Saudi Arabia, Turkiga iyo Pakistan uu hadda ku jiro daraasad qoto dheer oo ay wadaan hay'adaha dowladda Masar ka hor inta aanay Qaahiro go'aan rasmi ah ka gaarin ku beeristiisa. Abdilcaadi ayaa hadalkan ka sheegay shir jaraa'id uu ku qabtay Al-Alameyn kulana qabtay baa la yiri dhigaysa wadanka Turkiga Hakan Fidan oo qalqaalinaya dowladda Masar inay qayb ka noqoto dhinacyada ugu muhiimsan ee la hordhigayo heshiiskan, isagoo sheegay in tan ay ahayd markii ugu horeysay si rasmi ah dowladda Masar ay uga hadasho arrinta hadda taagan. wasiirka ayaa sheegay in Masar ay xiriir wanaagsan oo dhinacyo badan taabanaya la yeelatay 3 dal oo heshiiskan ku jira, isla markaana ay kala shaqeynayso qaab iskaashi ah oo ay ku midaysan yihiin Masar, Saudi Arabia, Turkiga iyo Pakistan. Abdilcaadi ayaa yiri waa wasiirka amuraha dibadda ee Masar iskaashigu haddii uu gaaro difaaca amniga iyo waliba istiraatiijiyadda, isla markaana uu keeno waajibaad sharciyeed oo ay lagama maarmaan tahay in si qoto dheer loo eego arrintan iyadoo lagu saleynayo dastuurka Masar iyo waajibaadka sharciyeed ee qarankan u yaala. horta dastuurka iyo
sharciyada kale ee wadanka heshiiskan ma iswaafaqayaan mase waxa jira isdiidooyin heshiiska iyo waxaan rabnaa inaan soo heshiisino shuruucda aynu ku shaqeyno iyo danaha wadanka Masar ayaa lagu yiri warka Cabdilcaadi waxa inta ku daray in Masar ay heshiiska ka warqabtay tan iyo bilowgiisii balse ayada dawladdu ay si qoto dheer u qiimeynayaan dhammaan dhinacyada loo gaaro go'aankan wasiirka ayaa sidoo kale sheegay in gobolka ay ka socdaan fikrado iyo hindisiyaal badan oo ku saabsan qaab dhismeedka amniga gaar ahaan xilliga bariga dhexe uu wajahayo dhibaatooyin xoog leh Turkiga waxaan rajaynayaa in Masar ay nagu soo biirto ayuu yiri wasiirka amuraha dibadda ee Turkiga Hakan Fidan ayaa sheegay in ay wada tashiyada Masar iyo waliba saddexda dal ee kale ay si joogto ah u socdeen tan iyo markii laga shaqeeyay heshiiska Maka Fidan ayaa sheegay in Qaahira ay la wadaagtaan dhinacyada aragtideeda ku aadan heshiiska wuxuu leeyahay waxaan rajaynaynaa Masar inay nagu soo biiri doonto ayuu yiri heshiiska Maka ayaa lagu tilmaamayaa mid kamid ah kuwa ugu cusla uguna xasaasisanaa ee gobolka bariga dhexe la keeno Saudi Arabia Turkiga iyo Pakistan ayaa toddobaadkii hore kala socday heshiiska Maka ee difaaca wadajirka kadib saddex geesood oo yeeseen Mohammed bin Salman oo ah wasiirka hogaamiye golaha wasiirada ee Sacuudiga ahna dhaxal sugaha boqortooyada wadankaasi madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan iyo ra'iisul wasaaraha Pakistan Mohammad Shahbaz Sharif waxa xusid mudan in Masar aysan ka qayb galin shirkii lagu saxeexay heshiiska inkastoo arrintan haddii ay dhac lahayd nidaamka Israa'iiliyiintu uu wadnuhu dhagdhihi lahaa isla markaana walaaca uu ku badan lahaa laakiin tallaabada kale ee caawa qaaday dawladda Masar ayaa qudheeda ah mid aan jaxay naxariiso ogsiinay nidaamkaasi Israa'iiliyiinta waya qeybtay nala socotahay haddii aad halkan nala soo gaarteen aad baad u mahadsantihiin dhammaantiinba laakiin su'aasheena caawa Trump warbaahinta gobolka bariga waa ku maadaysanayaan hubkiisina dagaalkii Iran waa ku dhigbaxay haddaba qamani kaartan nooca ayuu isticmaalay Trumpna mahawtul hamag iyo dagaal uusan ka fiirsan ayuu galay yaa saguulaysan doona magacaadii meesha aad joogto ku bilow qaybta hoose ee faalladana inoogu qor YouTube-ka Lexar muuqaalka sidoo kalena channelka subscribe haddii aad Facebook nagala socotana muuqaalka Lexar share garee saaxiibadana la wadaag kuna soo biir oo follow soo dheh aad baad u mahadsantiin